doorashooyinka dhici doona bisha 17 November waa shacabka Koonfur Galbeed waa shacab jecel nabadda waa shacab u hiilan in isbedel ku yimaado maamulka ummadan markaad fiirisid 1956 59 doorashooyinka ka dhacay halkan waxay ahayn doorashooyin xalaal ah haddana waxay rajeynayaan inay helaan doorasho dhab ah ayna doortaan shakhsiga ay doonayaan in loo doorto in ay doortaan waayo waqtiyada ugu dambeeyay shacabkan waxaa loo keenay jiray qof la doortay taasoo keentay maamulkii jiray iyo shacabkii inay wada shaqeyn waayaan laakiin haddii shacabka ay doortaan qofka ayaga ay doonayaan waa hubaala shacabkii iyo maamulkii inay wada shaqeynayaan taasna waxaan hubaa inay doorashooyin rasmi ah inay dhici doonto xildhibaanadan waan ku kalsoonay 100% inay ayagana ay tixgelin doonaan rabitaanka shacabka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan fariin u furayaa waan ogahay shacabka Soomaaliyeed inay shacab nabad jecel inay yihiin inay shacab u hiilan nabadda iyo horumarka laakiin nasiib darrada waxay tahay waxa shacabka mani hoggaanka u qabtay siyaasiyiin ku dhacay sinji wareer kala fahmi waa inay Afrikaan Arab inay Afrikaan yihiin inay Arab yihiin kala fahmi waa inay qaran ama qabiil yihiin inay kala fahmi waa jahwareerkaas awgiis waxa keenay jahwareer siyaasadeed xagga nabadda xagga amniga xagga horumarka waxaan rajeynaynaa markaas dhibaatada waxa loogu bixi karaa in shacabka doorashooyin rasmi la gaarsiiyo 2020 taasna waxay ku xiran tahay maamul goboleedyada jiro dadka hoggaanka u qabanaya hadaayiin dad shacabka ay ku niyad fiyo yihiin waa hubaal ah in la sameyn doono doorasho rab oo rasmi ah marka soo laad Koonfur Galbeed shacabkeeda ayagana maanta waxaan ku baraarujinayaa inay indhaha ku hayaan isbedelka socda indhaha ku hayaan inay ku dhiirigeliyaan xildhibaanada inay doortaan musharax ayaga ay rabaan inay doortaan marnaba suuragal maaha markastaba shacabka Koonfur Galbeed in loo keeno shakhsi aysan rabin laakiin markan waxaan rajeynayaa in la doorto shacabka shakhsi ay doonayaan in loo doorto